waxaan halkan ugu mahadcelinayaa marti sharafta kasoo qayb gashay waqtigooda soo hurtay taanka badan gelisay nagala soo qayb galaan kulankan maanta waxaan isku daynay in dad la gaara waqti bay kaaga bahanta markaa doorka waxaan weli waa bal dadka si sii ka horreysay ay bedelo bal dadka liin aynu dirno mar haddii tiknolojiyadii aad loo isticmaalayo dadka soo halkaha ka soo codsadaan ciddii dowladda timaado marka intii isdiiwaan gelisay intii haleeshay ee halkan timid aad baan runtii uga mahadcelinaynaa panelka halkan nagala soo qayb galay halkan dooda halkan taalay nala faqal balanqeyn aad baan uga mahadcelinaynaa ujeedooyin shirkan aan u qabanay iyo qaar kaloo badan oo soo socda waxa weeyaan sidii qayb weyn looga qaadan lahaa dib u dhiska dalka marka anagu akaademi ahaan daraasado iyo researches iyo waxaasaanu sameynaa marka aragto mushkilaadka dalkeena ku xeeran iyo problemska faraha badan leh ee mid dhaqaale iyo mid siyaasadeedba leh ee dalkeena haysta waxay ku tusaysaa halkaynu afrikaynu dunida ka jirno daraasadii ugu dambeysay ee world bank ay sameeyeen ayaa waxay ku sheegeen inaynu nahay waddanka saddexaad ee dunida ugu fakrisan 2012 waxaan malaynayaa gaarka weli kaliya bixin haddaynu hoos uga sii dhicin waa miisti haddada waxaan nahay waddanka tobnaad ee dunida ugu fakrisan waxay sheegi lahayd inaynu de kor u kacnay mar walaaba loo baahan in la sameeyo haddana waxay ku tusaysaa daraasada arrinkaas oo kaliya in muhiimadu waaweyn macnihi goobaha dhaqaalaha laga samayn karay dalkani haysto in aan tacab badan iyo waqti badan aan la gelin laakiin tacab iyo waqti badan wax la geliyaa siyaasaduhuna de way kala duwan yihiin inagu siyaasadda siday u naqaanaaye laakiinse siyaasadaha horumarinaya dalka lama sameeyo waana tan mushkiladii ugu weyna example baan siinayaa daraasad baan ka sameynay reportkeeduna waa haynaa waxaan isweydiinay warshada sibirka ee berbera waa example iminka 20 sano aynu joognaa dalka waxaa soo galay warshadaas oo shaqaynaysa ayaa dalka la qabtay maanta 20 sano kadib warshadaasi ma shaqayso waxaa isku dayay xukuumaddii daahiryaale xukuumaddii siraayo iyo xukuumadda iminka jirtay muuse bixi saddexdu way isku dayeen in warshadaas dib loo noqeeyo oo warshadaasi maadaama ay dalkana dib u sameeyo dib u dhiska dalkana dhaqaale weyn ay kusoo kordhinayso in warshadaas dib loo dhiso mushkiladu ma ahayn lacag looma hayo because waxa laga yaabaa in sida lacag lagu investment loogu sameeyo ee lagu maalgeliyo la heli kari lahaa ama dalka gudihiisa ama xataa dalkiisa ha noqoto mushkiladu ma aha dadkii ka shaqayn lahaa in la waayo because dunida waa laga helaya halkana waa laga helaya laakiin se mushkiladda weyn ee hortaagan ee saddexdaa dowladood ay ku feelgaroobeen maxay tahay waa su-aasha ugu muhiimsan ee isweydiinta waana tan tusaysaa inay jiraan caqabadooyin waaweyn oo hortaagan inuu dalkani dhaqaale ahaan inuu koro oo waxaa example kala ah mashruucan SDF la yidhaah oo aanu mar la shaqaynayno daraasad u sameynay ayaa dadkeena inta badan doo abaartu waa dhaqaalihiin saamaysay dee waxay doofinana dee xoolihii oo kagu badan kadib waxay war xoolihii noolaa waa dhulkii waa laga xidhay oo meel aanay dowba ka bixin iska daa beero ayaa 10 kilomitir cashiimooyin laga samaystay marka xoolihii meel ay daaqaan uma hayaan markay abaartu ku dhacdana way dhammaadaan sideebaa seerayaashii waqtigii hore jiri jiray loo soo nooleeyaa si markay abaartu dhacdo ay xooluhu badbaadaan seerayaashaasaa la siiyey dowladda gacanteeda ku soo celiyey dhowr qof baa ku dhintay waxay dareensiinaysaa in mushkiladda ugu weyn ee ina haysata ee ay tahay in si cilmiyeysan loo eego ay tahay qaabka ismaamulka ee dadkeeda
يقابك دولة مركها جرتا أي معمولة صو سياسته لو كبعين لها برايفت سيكتور وبرايفت سيكتور مرة يقول هني إن environment تيجي كوشقين لها شروطي السياسة معنيه flexible أو كوشقين لها يسميه مرة هو إن قليل يكتشلا برايفت سيكتور هذا اللي جعليه ولا ريجوليت كريه مركا وبرايفت سيكتور ريجوليشن لو سميه ومركا الله سميه ما تعرف تقول لكن سي واحد كوي من الساتاسي دراسته يقول حاله بكوي من السات كم من السات كنتي سيدا إنه بعدين فكرنا أما قام كأي أي سيستم كي نوش كأي كنتي كم من السات دور الوان هل كان أو سيشن كان كبلام يا أنا بتلاقي الله إنه كتير وحوي أو إكسامبل كان أكو سوقات ومحي مشكلة دواوي السياسة أما بقى عليها النقطة السياسة هذا النقطة أنت تعليه من تيجي بيلي ما هو قياسا 2 بليون إن الإمارات اليوم سبنتيرا هايستي هذا وقف كبير منك كده لهذا هم يوم كده هايستا منك أقول عارف بدل إلى ما سبارة وشيء كده بقول له بقول لي ده بليون هايستا في دي بيجا يطول بليون كسرنا لانه يكن وضمن كلام كبير وشخص كده أيها واحد هايستان بو ضمن كيس كبار هدي لسكوت ده وضمن إيجل هو سيدي الوطن سيدي بيقول أنا هدي لسكوت ده هو لا مرة بدي قول ودنك إيجيبت بقى كبدانه مركها تلو بعنا إنه في شوال من واسو عليها فندمنتها كا سيشن كان مركها ما هو نعيو أصحاب تيجي هل كان لو مرتين هذا إن الدور ده ينلا فرنقيا والدور مور أكاديميكا مركها سيشن كان كاسل يكون بلابنا كده ما سيشن كلا إن شاء الله الأسبوع صار نقولنا أقول ناسيت